kulan waxaan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maanta waxaa marti igu ah Ismaaciil Cusmaan agaasime ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda sidoo kale waxa hore u soo ahaa la taliyay hore ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhanka amniga mudane Xasan Sheekh Maxamuud ku soo dhawow marka hore barnaamijka kulanka ومحسوطة علي وعدوها هذه دمان داود ياشون وهاجاج waxaa soo noqnoqotay eedeymaha la xiriira bixinta darajooyinka iyo dalacsiinta saraakiisha ciidamada dawladda ee loo jeediyo madaxda sare ee dawladda hadii ay ahaan lahaayeen kuwa hadda jooga ama kuwii hore oo la xiriira in loo bixiyo qaab aan munaasab ahayn hadaba maxay tahay aragtida ku aadan jiritaanka arrinkaas arrintaas waa arrin jirto waana arrin xaqiiqo ah darajada la bixiyana caqabadaha ugu waaweyn haysta waxay tahay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo degan doorashadooda marka ay doorashada soo dhawaato ka dhiga inay wax qabteen oo iyagoo raadiyo darajo u raadiyo dadka ay isku heybtiyiin waa caqabada ugu weyn haysta bixinta darajada iyadoo aan lagu bixinaynin mudnaanta sarkaalka uu leeyahay balse lagu bixiyo awoodda xildhibaanka baarlamaanka ku matala ama awoodda uu leeyahay maartay wada dhaqameedkiisa mid labaadna waxay tahay nidaamkan 4.5 ka leeyahay 4.5 kaasoo lagu dabaqay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhamaan ciidamada qaranka oo dhan waana arrinta ay caqabad ku ah isla markaasna dhantaashay awoodda iyo kartida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadii aan labadaas maartay laga meel looga soo jeesana ciidanka ma noqonayo ciidan tayo leh ciidan nafsiisa wuxuu ciidan ku yahay tababar karti geesinimo iyo inuu leeyahay jacayl wadani laakiin ciidan jacaylkiisa wadani lagu beddelay jacayl qabyaalad ama qabiil ma noqon karo ciidan qaran waxaan doonayaa inaan bulshada u bidhaamino qaab nooc ah ayaa darajooyinka loo bixiyaa yaa sab bixin kara oo xaq u leh in uu bixiyo darajooyinka ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Soomaaliya darajada ka sarreysa wixii ka sarreeya xidigle waxa bixiya taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleed ma bixin karo darajo intaas ka sarreysa waxa ka hooseeyna waxa bixin kara saraakiisha markaas sarkaalkaas maxaan ku yiraahdaa uu hoos tago haday noqon lahayd taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama booliiska ama haday noqon lahayd madaxa maamul goboleedka markaas u garto inuu dalacsiyo laakiin darajo ka sarreysa xidigle cid aan ahayn madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya bixin kartaa ma jirto Okay sida adiguba hadalka ka dhawaajisay waxa la arkaa mararka qaar maamul goboleedyada dalka ka jira oo bixinaya darajooyinka ciidamada xaq ma u leeyihiin arintaas hadii aysan xaq u lahayn sawtaasi caqabad ma ahan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku horgudban waa caqabad weyn xaqna uma laha sharcina ma aha dastuurina ma aha in madaxweyne maamul goboleed uu bixiyo darajo ka sarreysa xidigle hadii uu bixiyana waa sharci darro sarkaalkaas la sii darajadaasna ma aha mid loo xisaabin doono marka ay timaado dawladda la xisaabtanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Okay waxa tahay xeel dheere arrimaha ciidamada muddo ku soo dhex jiray waa maxay sababta Soomaaliya u yeelan laadahay ciidamada Soomaaliya amniga kala wareega ciidamada AMISOM iyo kuwa aan AMISOM ka ahayn ee dalka soo buux dhaafiyay muddooyinkii ugu dambeeyay su'aashaas saddex qayb aan kala qaadaya kow ciidanka Soomaaliya haday ahaan lahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed nabad sugidda iyo booliiska ma jirto wax tiro yari ah oo waxa jira ciidan tiradiisa ay badan tahay balse tayadiisa ay aad iyo aad u hooseyso waxaana caqabadaha ugu waaweyn ah waa ciidamada oo aan maartay gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma helaan tababar fiican oo ku filan hadii ay helaanna waxa lagu soo kala tababaraa dalal kala duwan taasoo keenaysa inaanay isfahmin habdhaqanka ciidanka markaas looga baahan yahay waxaad arkaysaa ciidan lagu soo tababaray Uganda kuwa lagu soo tababaray Turkey kuwa lagu soo tababaray Qatar kuwa lagu soo tababaray Eritrea marka taas laftirkeeda waxay keenaysaa ciidamadaas meelaha kala duwan lagu soo tababaray in aanay lahayn tababar midaysan oo isku mid ah midda ugu weyn oo ciidan lagu tababaro oo juhdiga ugu weyn lagu geliyo waxa waa jacaylka wadankiisa iyo in loo sheego sarkaalkaas ama askarigaas inuu u dhimanayo ciidda difaaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa balse ciidan uu shisheeye ku soo tababaray u malayn maayo in maartay hanuuninta noocaas ah uu soo qaadan karo taas waa midda labaad shabaab 3,000 ilaa 7,000 waaye ciidamada dagaalyahanada al-shabaab ee Soomaaliya dhan oo jooga ciidanka militariga waa ilaa 65,000 hadii booliiska iyo nabad sugidda lagu darno waxay cagacageenayaan ilaa 100,000 marka meeshaas waxa kaaga muuqda inaanay tiro yar jirin balse ay jirto tayo xumo talo xumo iyo amni loo dhan yahay oo wada gaaraan maxaan ku yiraahdaa maamulka dawladda dhexe
iyo maamulka dowlad goboleedyada sida adiga aad ka dhawaajisay madaxweyne dowlad goboleed ayaa bixiyay darajo generaal ah taasoo oo maaragtay ku tusinaysa in aanay jirin isku xirnaan maamul goboleedyada iyo maamulka maaragtay dowladda federaalka ee muqdisho fadhiya maadaama aad ka dhawaajisay in ciidanka militariga ay 65,000 gaarayaan marka lagu daro booliis iyo nabad sugid ay 100,000 gaarayaan kuwa AMISOM oo mandateeka loo cusboonaysiin ay gaarayaan 21,000 oo 121,000 ay ka badan yihiin ciidamada dawladda ay gacanta hadda ku hayso maxay tahay sababta dagaalka ururka al-shabaab loo soo afjari laayahay oo ama 3,000 la eg ama 4,000 la eg oo deegaano tiro yar ku harsan horta mid waa muhiim inay shacabka Soomaaliyeed ogaadaan Soomaaliya waxay dhexda kaga jirtaa waxaan loo yaqaan dagaal juqraafiyeedka ama geopoliticskana wadamada daneeya Soomaaliya waxa ka jooga ciidan hadday noqon lahayd wadamada reer galbeedka sida Mareykanka Ingiriiska iyo hadday noqon lahayd wadamada dariska ah ka tirsan ku jooga magaca AMISOM ee African Union intaba waxay u joogaan oo ciidankaas u joogaan wax kala ma aha hadii kooxda al-shabaab dalka laga qabto ama laga xoreeyo ma helayaan fursad ciidan ay wadanka ku joogaan isla markaasna ay qayb libaaxa la kaga qaataan ku gacna bidixeeyaan siyaasadda dalka marka Soomaaliya waa wadanka kaliya ee Afrika ku yaala ee qaniga ah ee leh maxaan ku yiraahdaa macdan leh shidaal leh kheyraadka xoolaha leh kalluunka leh beeraha leh lama soo koobi karo qaraadka Soomaaliya uu leeyahay marka wadamada danaha kale Soomaaliya oo isdiidan geopoliticska uu ka dhaxeeyo gacanka cadmeed iyo geeska Afrika sida Shiinaha Ruushka Mareykanka maxaan ku yiraahdaa wadamada reer galbeedka Ingiriiska ugu horeeyo Norway Sweden intaasoo idil waxay rabaan qof walba inuu asaga uu maaragtay saaxiib dhow la noqdo dawladda Soomaaliya waxayna taas ku heli karaan oo kaliya in ay mar walba maaragtay maaragtay dhibaatada ay sii socoto ilaa ay marka dambe laga helo Soomaali midaysan oo waana mid hadda keentay in la isku qasbo oo la isu keeno Soomaaliya iyo Somaliland oo Djibouti la isugu geeyo inkastoo wax macno la aysan ka soo bixin haddana waxaa la ogaaday oo ay garowsadeen in Soomaali midaysan oo hal ah looga faa'iideysan karo kheyraadkaas waxaana ka muhiim ah dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan ay tahay midowga Soomaaliya iyo Somaliland markay isku biireen 1 Luulyo 1960kii sanadkii 1971kii waxa garatoor ka noqday midowgaas markii uu maaragtay Maxamed Siyaad Barre dalka ku qabsaday dalka Shiinaha marka dawladda Mareykanka waxay ogaatay in aanay marnaba ku heli karin ama ay suurtagal noqonaynin inay Somaliland Soomaaliya ka go'do isku haynta la isku haynayo oo midnimada la soo celinayna ay tahay mid lama huraana waxa loo kala ordaayo hadda la isku qasbaayeen wax kala maahana waxa la rabaa in laga ilaaliyo inay dawladda Shiinaha oo hadda maaragtay u soo jeestay arrimaha Afrika gaar ahaan geeska Afrika laga ilaaliyo kheyraadka Soomaaliya hadday noqon lahayd macdan hadday noqon lahayd kalluun iyo haddii ay noqon lahayd kheyraadka kale ee dalka oo dhan waa hagaag mar kale adigoo kaashanaya taliye Cusmaanow maxay kula tahay caqabadaha ku horgudboon ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed caqabadaha ku horgudboon ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed way tiro badan yihiin kow waa tayo xumo oo haysata ciidanka labo saraakiisha ciidanka hogaamisa oo aan lahayn khibrad ay ku hogaamiyaan oo ah dad dhalinyaro u badan oo aan lahayn khibrad ciidan oo aan gaarsiisnayn 5 sano wax ka badan ama ka yarba marka taas waa caqabad koowaad caqabad labaad waxay tahay ciidankii oo ah ciidan beeleed la isu keenay lama qaramayn oo ciidan mid ah oo qaran lagama dhigin oo hadda ciidanka jooga dowlad goboleedyada iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee jooga Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose iyo Muqdisho wax shaqo ay isku leeyihiin mala hoggaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ma amri karo ciidamada maaragtay jooga Kismaayo ama jooga kuwa Garowe marka taasaa ku sheegaysa ciidanka tayadiisa inay aad u hooseyso isla markaasna loo baahan yahay in la qarameeyo ciidamadaas taasna waxay ku imaan kartaa in la helo siyaasad xasiloon oo degan oo isu keenta maaragtay maamulka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka taasna waxaa udub dhexaad u ah in la sameeyo shirweyne ballaaran oo dib u heshiisiin ah oo la isugu keeno Soomaali oo dhan kadibna maaragtay nidaamka dhisida dowladnimada hoosta laga soo bilaabo laakiin waxaa moodaa hadda in wax walba kor laga bilaabayo taliye Cusmaanow hadalkaaga waxaa ka mid ahayday in ciidamada lagu soo tababarayo dalalka kala duwan ee Soomaaliya caawiya aysan ciidanka xoogga Soomaaliyeed anfacaynin maadaama aysan isku gaardis ama isku gali aqoonin oo tababaradu kala duwan yihiin maxay tahay sababta dawladda Soomaaliyeed ay u sameyn laadahay xero dhexe oo ciidanka lagu mideeyo kadibna dibadda loogu diro Layli Sargal haddaan taas si fudud ugu jawaab aniga ka shaqsi ahaan waxay ila muuqataa wadamada dan ee saaxiibada la ah Soomaaliya sida ogtahay waa wadanka waxa la yiraahdaa afka qalad lagu yiraahdo donor
dependent nation ama waddan ku dhisan maaragtay ku taagan cagaha deeqaha ay ka helaan dalalka daneeya Soomaaliya. Marka xilligii maaragtay way soo dhawaatay saan isleeyahay xilligii Soomaaliya cageeda ay ku istaagi lahayd oo midnimo iyo maxaan ku rahaa dowlad xoog badan oo Soomaaliya la dhislaa waa la soo gaaray. waxaana moodaa inay baadigoob ugu jiraan dad karti iyo aqoon iyo awood siyaasadeed ku leh Soomaaliya oo ay ku aaminaan taladaas. laakiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxaa saldhig u ah marka hore in la helo siyaasad xasiloon iyo dowlad awood leh oo heshiis la ah dowlad goboleedyada. markaas ayaa ciidanka qaran u dhisi karaa oo maaragtay waddanka oo dhan ka wada shaqeeya. waa maasantahay. mararka qaar hogaamiyaasha ciidanka dowladda qaybahooda kala gedisan ama hogaanka kala gedisan waxaa lagu arkaa iyaga oo xilal ka haya rag ka soo goostay ururka al-shabaab. maxay tahay sababta keenaysa ama baahida keenaysa in uu xil ka qabto nin ka soo goostay ururka al-shabaab ciidanka dowladda Soomaaliya? wax baahi ah oo keenaysa ma jirto in sarkaal ka tirsanaa kooxda nabadiidka al-shabaab ee ka soo goostay uu ka mid noqdo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hadday noqon lahayd nabad sugid ama hadday noqon lahayd ciidanka militariga ah. nin mar haddii uu shabaab soo maro waa in laga ilaaliyaa ciidan sababtoo ah ninka shabaab soo maray ma aha nin la aamini karo si kastaba maaragtay ha ku yimaado. baahi keenaysa aniga kulli hadda anigu ma arko. waana ayaan darro waana nasiib darro in maanta saraakiil waaweyn oo shabaab ka soo goostay ay ka mid noqdaan hay-adihii ugu sarreeyay ee sirdoonka iyo qaarna ay noqdaan booliis qaarna ay noqdaan military. waa ayaan darro waana arrinta isleeyahay meelaha ay doldoleelada amniga ee jira ay kaga faa'iidaysteen kooxda al-shabaab inay sii wadaan qaraxyada joogtada iyo dilka joogtada ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed. ma la dhihi karaa caqabadaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku horgudban ayay qayb ka tahay? waa caqabad aad u weyn waaye inkastoo caqabadaha ay badan yihiin caqabad aad u weyn waaye waxayna ahayd in sharci laga soo dejiyo. mana jiro adduunyada waddan nin argagixiso caalami ah ka tirsanaa oo kasoo goostay ka mid noqdo maxaan ku dhahaa hay-adihii ugu sarreeyay ee amniga iyo sirdoonka dalkaas ma jirto oon Soomaaliya ahayn. waana midda ay aadna looga maaragtay dadka saaxiibada la ah Soomaaliya aanan u aaminsanayn hay-adda nabad sugidda ee NISA waqti xaadirka aan la joogo. waana midda keentay in hay-adda ay noqoto go'doon ah oo ka shaqaysa dana gaara ay leedahay uu leeyahay taliyaha hadda jooga ee Fahad. marka si loo helo ciidan tayo leh oo maaragtay ama sirdoon tayo leh ee Soomaaliya waa in la helaa ciidan iyo sirdoon tababaran maaragtay khibradeedana leh isla markaasna aanay ka mid ahayn shakhsi ka soo goostay kooxda al-shabaab. xilliga aad adiga ka ahayday hogaanka NISA aad ka tirsaneed ma arrintaa hore miyay u dhacday mise waa arrin dhacday adiga idin kadib xilliga aad ka degtay xilka? arrintaas waa arrin dhacday marka annaga xilka aan ka tagnay kadib. intii markii aan ku soo biiray hay-addana waa jirin niman saraakiil hoose ah oo dabley ah oo shabaab ka soo goostay oo loo isticmaalayay saani inay maaragtay sheegaan ragga magaalada ku jira ay aqoonsadaan ragga magaalada ku jira oo loo isticmaalayay laakiin ma jirin sarkaal darajo sare leh oo ciidan hoos tagaan oo shabaab ka soo goostay maysan jirin. waana midda aan keentay saan isleeyahay aniga inaan kaga guulaysano in magaalada Muqdisho gebi ahaanteedba maaragtay aan ka safayno oo qaraxyo teelteela ay ka sameeyaan magaalada. laakiin magaalada nabadana ay fiicnayd isku socodkana uu aad u fiicnaa maxaan ku idhahdaa taasoo sahashay in dhaqaalaha magaalada Muqdisho uu kobco. maantana waa qof walba waxay markhaati ka tahay halka ay marayso. qodobka 54 ee dastuurka ku-meel gaarka Soomaaliya waxa uu qeexayaa in ay dowladda dhexe xaq u leedahay dhismaha ciidamada. haddaba maamul goboleedyada qaar waxa ay leeyihiin ciidamo ka hub badan ama mararka qaarba ka tiro badan kuwa dowladda dhexe mana ogola in ay wareejiyaan. arrintaasi soo qayb kama ahan caqabadaha ku horgudboon ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed? waa saan u sheega waaye waa caqabadaha ugu waaweyn ee ka mid tahay ku horgudban ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waddankanna dhibaatada ugu weyn maanta jirta waxay tahay haddii ahaan lahayd dowladda dhexe ee dowladda federaalka ah iyo haddii ay ahaan lahayd dowlad goboleedyadaba waxa la iska laabay oo dhinac la iska dhigay ku dhaqanka sharciga. ilamaa taas loogu soo noqdana sharciga ku dhaqankiisa la tixgeliyo qofka ku xadgudbana tallaabada u mudahan laga qaado. waxaan u malaynayaa inay waxa hadda aan aragnay wax ka daran ay dhici doonaan. waxaa jira dowlad goboleedyada waxay u gaar ah iyada oo ay u madax bannaan tahay iyo waxaanay u madax bannaanayn. waxaana u madax bannaanayn waxa waaye ciidanka qaranka. waxaana u madax bannaanayn waa siyaasadda arrimaha dibadda. waxaana u madax bannaanayn waa lacagta shilin Soomaaliga
waxaa kaloo is u madax banaaneen waxa waaye diblomaasiyadda dalalka Soomaaliya ay ka joogaan safaaradaha ay ku leeyihiin marka haddana waxaad arkaysaa wakiilka dowlad goboleedka hebel oo Kenya ama Ethiopia ama Djibouti ama Imaaraadka Carabta marka waxyaabaha waxay ka mid tahay waxyaabaha islaayahay ugu weyihiin caqabada ku ah siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya waxay ka dhaqaaqay sababtoo ah dadka diblomaasiyiinta caalamka aan la macaamilayno waxay ku wareereen inta dal ay nahay waa imisa dal ka dhex jirta dowladda Soomaaliya dhexdeeda marka taasna waxaa sahlay in la garabno ku dhaqanka sharciga iyo ilaalinta dastuurka oo qof walba u dhaartay hadduu ahaan lahaa xildhibaan hadduu ahaan lahaa ra'iisul wasaare hadduu ahaan lahaa madaxweyne marka ilaa sharciga la dhowro sharciga ku dhaqankiisana oo muhiimadda la siiyo waxa hadda aan aragnay wax ka badan waa filanaynaa saraakiisha hogaanada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddii ay ahaan lahayn kuwa militariga ama booliiska ama nabad sugidda haddii xilalka laga qaado waxaan aragnaa iyaga oo dibadda u cararay oo aan ka qayb qaadan dhismaha ciidamada xoogga taliya Cismaanow adiguba aad ka mid ahaatid soo lama dhigi karo dalka waad u soo shaqo tagteen oo waxaad dib ugu laabateen qurbihii marka xilka la idinka qaaday aad ku noolaydeen waa runta waa la dhihi karaa laakiin ogow qof walba oo muwaadin ah wadankiisa u soo laabtay oo rabo inuu wadanka wax ka bedelo shaqadan la qabanayo waa shaqo qaran shaqada qarankana waa in wax laga siiyo laakiin haddii hoggaanka dalka ay la wareegeen koox gaar ah oo haysataba inay tahay maaragtay shirkad ayaga ay leeyihiin oo inay kaaga banaaneen meel aad ka soo gasho ama meel aad tala ka dhiibato iskama dhex taagnaanaysa wadanka nin walba reer iyo maxaa maaragtay ilmo korisa ka dambeeya marka haddii la iska saqjaamayo hoteelada xamar la iska dhex fadhinayo meesha maxaa laga noqonayo waa goonideeda laakiin nin walba caqli leh oo reer ka dambeeyana waxa waaye reerkiisu ku laabanaya oo maaragtay nolol maalmeedkiisu wadanaya laakiin dowladda ma aha dowlad maaragtay dowladdu waa dowlad la wada leeyahay laakiin waxaan aragnaa dowlad hadda u eg maaragtay dowlad shirkad ah oo leeyahay hebel dowladdu wax kasoo dhistay marka taasaa keentay in maaragtay dadka ay ka tagaan dalka okay maadaama aad hoggaanka sare ee nabad sugidda Soomaaliya aad ka soo qayb noqotay oo aad khibrad u leedahay arrimahan taagan ee caqabada ku ah dowladda Soomaaliya tala ma ka siisay dowladda Soomaaliyeed ama ma kala talisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed adigoo ku sugan dalka dibadiisa wax tala ma ka geysatay haddaan si fudud uga jawaabo su'aashaas Soomaalida waxay ku mahdaa waa abuurisa ka horreysay ragga talada dalka qabtay markii ay talada dalka qabanayeenba kumaysan qaban inay wax hagaajiyaan waxay talada dalka waxay u egtahay inay u qabteen inay uga faa'iideeyaan dadka ayaga soo maalgeliyay lacagta ku bixiyay doorashadooda marka cid ay tala ka qaadanayaan ma jirto haba yaraatee aniga marka loo fiiriyo aqoonta iyo khibradda aan u leeyahay waxaa jira dad iga badan iga aqoon badan iga khibrad badan ilaa haddana dalka jooga oo talooyin wax ku oolana bixiyay balse aan maaragtay taladooda la qaadan ama lagu camal falin marka Soomaalida saan sheegay waana abuurisa ka horreysay mararka qaar waxaa soo noqnoqota in ay ciidamada dowladdu dhexdooda iyagu ay isdilaan oo cadow isu arkaan arrintaas iyaad is leedahay waa uu ka gaabiyey yayse ahayd in uu xalliyo arrintaas ciidanka dowladda inay isdilaan waxaa keena laba waxyaabood kow waxaa keena ciidamadan arkaysa horta mushaarkoodu waa mushaar aad u hooseeya aad u yar waa $100 waxaana loo siiyaa maxaan ku idhahdaa gramna waxaa loo siiyaa $1 iyo $2 waxay tahay maxasuusta marka nin reer leh oo 4 cunug 5 cunug iyo qaarkoodna laba xaas ay leeyihiin lacagtaas kuma filna ma ahana lacag asaga ku noolaada masreerkii ku noolaada marka ciidamadan gaarkooda u shaqaystaan oo dadka ama baata ka qaateen ama si kale waxa uga farsamaysteen waxa keenaya isku dhacooda markaa fiirisid mar walba la isku dhacana waxa guddig u ah isku dhacooda waa dhaqaale marka ciidanka oo aan la siinin mushaar ku filan isku dhacooda wuxuu noqonayaa mid aad u filateeda kale san hor u sheegay tayada ciidanka waxay ku xiran tahay tababarka la siiyo marka ciidamada arkaysid oo ciidamada maaragtay aan tababar fiican qabin oo qoriga inuu ku shaqaysto ciidanku ugu biiray laakiin maaha ciidan qaran maaha marar badan waxaa dhacda in deegaano horey loo xoreeyay ay ciidanka dowladda ka baxaan iyadoo aan la xiriirin tactica dagaal haddana mar labaad dib loo weeraro oo loo xoreeyo oo mar labaad dhiig ku daato maxay tahay arrintaas oo deegaan mar dhiig ku daatay looga baxayo oo dib loogu laabanayo mar kale dhiig loogu sii daadinayo arrintaas waa arrin jirta oo xaqiiq ah laakiin inta badan dhagaha laga xirtay arrintaas waxa udubdhaxaad u ahaa ciidanka nabad ilaalinta amisom markii meel la qabto oo ciidanka Soomaaliya ay galaan ay meeshii hayaan kor ayay kala socdaan oo gawaari gaashaaman oo xoog badan ay haystaan marka
waxay sameeyaan way ka gurtaan oo dib uga baxaan marka ciidankii hadii dib uga baxaan kooxda al-shabaab waxa u fudaanaysa inay meeshaas ka soo weeraraan laba ama saddex meel ayagoo qaraxyo isdaba jooga iyo ciidan tara badan ku soo galaya marka dhowr jeer ayaa lagu halaagmay oo ciidanka Soomaaliyeed lagu dhameeyay markay AMISOM saas sameeyeen taasaana keentay markay AMISOM baxaan ayagana inay soo baxaan laakiin cid kala xisaabtanta AMISOM ma jirto meel walba oo la qabtay ilaa nidaam dawlad looga dhiso ciidan maaragtay deegaana loo sameeyay inaanay ka bixin ayaa ku qoran mandate-ka AMISOM balse kuma dhaqmaan oo si ula kacaya uga baxaan waana midaan isleeyahay keentay inay mar walba maaragtay loo cusboonaysiiyo xilliga ay Soomaaliya sii joogi karaan meeshaas waa laga gaabiyay isla xisaabtankeeda soo lama dhihi karo ciidanka AMISOM cid la xisaabtanta mala shacab bay dilaan dad bay gaari jirsiyaan waxaan mandate-ku ay waddanka ay ku joogaan wax ka baxsan ay sameeyaan shidaal bay iibsadaan waxyaabo badan oo maaragtay aad u xun ayay sameeyaan laakiin ma jirto dawlad la xisaabtami karta sababtoo ah dawladdii ay hoggaanka AMISOM waxay uga haweyn tahay inay dhinaca siyaasadda ka caawiyaan ay ugu cagjuglayaan dawlad goboleedyada iyo maaragtay dadka mucaaradka taasaana keenta isleeyahay in AMISOM laga gaabiyo in la xisaabtamo iyay tahay cidda la xisaabtamaysa AMISOM oo xaq u leh inay la xisaabtanto oo maxkamad ku soo oogta ama maxaa la dhihi jiray kula xisaabtanto howlaha noocaas marka ay sameeyaan ka dhacaan qaladaadka noocaas ama gefka noocaas la xisaabtankaas waxa iska leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asaga iska leh la xisaabtanka ciidanka AMISOM asagoo isticmaalaya hay'adaha shaqada ku leh amniga la taliyihiisa amniga wasiirka gaashaandhigga ra'iisul wasaaraha in la xisaabtamo oo maaragtay AMISOM waliba xilligii Xasan Sheekh Maxamuud uu joogay waxa jiray guddi qaabilsanaa oo 5 ah oo qaabilsan ilaalinta mandate-ka ay ku joogaan AMISOM waddanka ay ku joogaan oo mar walba ay fal dambiyeed ka bax ay sameeyaan ama ay sameeyaan wax ka baxsan mandate-kooda shir la qaadan jiray oo la xisaabtami jiray ilaa ay marka dambe ay bixiyeen magdhow dad shacab oo si gandarra ama xaqdarra ay u dileen qaarkoodna xataa aan waxaan xasuustaa 2 jeer iyo 3 jeer waxay ma xasuusto in niman AMISOM oo fal dambiyeed sameeyay aan xabsiga dhignay okay haddii ay dambi galaan AMISOM oo ay dad rayida dilaan sida marar badanba dhacdayba ma jiraan shuruuc markii la keenayo laga baaraan degay oo la waafajiyay shuruucda qaramada midoobe oo waafaqsan midda ciidamada nabad ilaalinta wadamada caalamka ay ka joogaan AMISOM si qaramada midoobe ka joogaan si loo waafajiyo markay dalka dambi ka galaan mise wadamada ay ka soo jeedaan baa lagu maxkamadeeyaa dawladda federaalka ayadaa looga fadhiyaa mar walba oo fal dambiyeed noocaas uu dhaco inay la xisaabtanto dacwadna ay gudbiso waana haddii aanay dawladda dacwo gudbinna dee cid kaloo dacwo maaragtay dabagelaysaa ma jirto mana rabaan wadamada la yidhahdo TCC-da ama Troop Contributing Countries-ka ma rabaan inay ku ceeboobaan maaragtay howlaha ay Soomaaliya u joogaan marka haddaanay dawladda pressure garaynin oo aanay la xisaabtamin oo aanay dacwo ku soo ogin ayaga dacwo kuma soo ogayaan taas waxa qeer taliya Cismaan oo marar badan waxa dhacda in deegaan la xureeyo dib looga baxo oo dadkii ciidanka dawladda u mashxaraday ee u sacabtumay ee soo dhaweeyay markii ay ka baxeen meeshaasi al-shabaab ay soo galaan ee ay dilaan iyagoo u daliishanaya dawladda ayaad soo dhaweyseen taasi ma sababi kartaa kalsooni darro iyo shacabku inay ciidanka dawladda la shaqeyn waayaan haddii ay haa tahayse maxay tahay sababta ciidanka dawladda Soomaaliya ay sidaa u sameeyaan ciidanka dawladda waa jiraan marar badan oo ay ka baxeen meel ay qabsadeen kadibna kooxda shabaab ay soo gashay taasna ay maaragtay ku xasuuqday dadka soo dhaweeyay ciidanka marka mar iyo laba maaha inta mar ay dhacday waa ayaan darro waa nasiib xumo waxayna sii fogeynaysaa kalsoonida ay shacabku ku qabaan dawladdooda maadaama dawladda aanay amnigoodana sugi karin markii ay yimaadaana ay si sahal uga baxayaan meelaha ay qabsadeen marka kalsooni darro un bay sii keenaysaa mahay isku soo dhawaansho maaragtay dawladda ay jecel ay u qabaan dawladdooda waa sii yaraanaysaa Cismaano waxaad ka soo mid noqotay hoggaanka ugu sareeya ee hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed dabcan dalka ciidamo ajnabi ayaa jooga marka in deegaan la weeraro miisaal ahaan oo kale marka ama bu'aal oo kale in la weeraro ay tahay istiraatiijiyadaas yaa dejiya ma hoggaanka AMISOM baa dejiya oo istiraatiijiyada lagu weerarayo mise ka Soomaaliya dejiya istiraatiijiyada marka meelaha noocaas la weerarayo waxaa dejisa AMISOM aa dejisa oo annaga markii sanadkii 2016 bishii September ayaa la sameeyay wax la yiraahdo Jubba Valley Corridor oo loogu talagalay in lagu xoreeyo gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe looga xoreeyo al-shabaab balse waxaan galnay doorasho waxaana yimid hoggaan cusub dag jalal looma siin oo ilaa iyo haddana waxaad moodaa in la siyaasadeeyay
oo maaragtay ciidan laga qaaday magaalada muqdisho la geeyay gedo la rabo in bu'aala maaragtay lagu qabto waana mid ay ka diideen kooxda amisom inay qayb ka noqdaan howlgalkaas waana sababta aan isleeyahay way dhici weyse kole in qorsho wuxuu ahaa ciidan ethoobiyan ee ciidanka geda la geeyay inay bu'aala qabtaan laakiin waxaa igu maqaala ah in maaragtay pressure uu kaga yimid wadamada reer galbeedka uu maraykanka ugu horreeyay inaanay arrintaas ay ka feejignaadaan keentana in ciidanka Ethiopia dib uga laabtaan gobolka Gado ay ku noqdaan Ethiopia maxay tahay sababta la isleeyahay in ay amisom dejiso oo ciidanka Soomaaliya ay marti ahaan u raacaan maxay u dejin waayeen kuwa Soomaalidu oo amisom caawin ahaan ugu raaci laada ma jiro saraakiil loo soo tababaray oo hadda ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo khibrada noocaas leh oo dejiyo dagaal dejiyo isla markaasna howlgeliya sababta keenaysan waad garan kartaa oo ma jiro ciidan isku toosan oo qaran ayaana jirin marka in lagu tiirsanaado qariidada dagaalka waxa la war plan la yiraahdo ay sameeyaan amisom midda keenta taasa kooka ciidamada Soomaalida ay noqdaan dufcada ugu horeysa ee gasha meesha amisomna marba ay gadaashooda joogaan marka waad garan kartaa wax ku dhimanayo waa Soomaali wax la dilayo waa Soomaali kan dilayna waa Soomaali ciidanka amisom muddo 10 sano hadda ka badan dalka joogana inkastoo ay naftkooda dhiig ay u hureen haddana way sii joogi doonaan 10 sano oo dambe haddaan aqliga goormee aad isleedahay ciidamada amisom ee dalka way ka bixi karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma yihiin kuwa u diyaarsan in ay buuxiyaan booska amisom banays 2021 ayuu ay haddu qorsho yahay inay ka baxaan sanad walbana sanad baa lagu qabtaa 2016 ilaa iyo 2020 sanad walba oo loo cusboonaysiiyo hadda bil ka hor ayaa mar kale loo cusboonaysiiyay sanad June 2021 waa inay wadanka ka baxaan balse sida aan isleeyahay June bisha May 2021 waxaan aaminsanahay in mar kale haddana sanadkan loo cusboonaysiin doono sidaan ku sheegayna ciidan qaran oo midaysan oo Soomaali oo dhan isugu jirto oo leh tababarkii leh khibradii leh hogaankii leh maxaan ku iraahdaa helaa xuquuqda ay leeyihiin haday noqonayd mushaar iyo raashin iyo daryeelka qoysaskooda caafimaadka haddii intaas la helo amisom waa laga maarmi karaa anaga koleysaan ku sheegay ma jirto tirayari ciidan ma jirto waxaa jirta tayo xumo iyo tababar la'aan iyo siyaasad midaysan oo amni oo dalka loo dejiyay si looga xoreeyo kooxda al-shabaab taliya Cismaanow bariya dhaweyd waxa baraha bulshada qabsaday magacyo kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida gorgor iyo wax la mid ah oo ay maamul goboleedyada qaarkood aad muddo in ay siyaasadeynayaan oo laga cabanayo maxay tahay sababta loo siyaasadeynayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula tahay adiga niyo ciidan magac ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa dhisan yahay laakiin dawlad goboleed walba ciidanka uu haysto waa ciidan beelaad ciidan beesha markaas meesha degan ciidankiisa ayuu magaca siiyaa maxaan ku iraahdaa ciidan isku dhafan oo Soomaali oo dhan laga dhaxilaayo inta aan ogahay waa ciidanka hadda Muqdisho jooga maxaan ku iraahdaa jooga wasaaradda gaashaandhigga jooga laakiin inta kale waa ciidan beelad waaye ugu dambeyntiina waxaan mawduucaas ku soo afjarayaa ciidan qaran oo midaysan lama heli karo ilaa marka hore siyaasadda la xasiliyo dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalkana ay maaragtay ay furaan wada hadalla furaan laga heshiiyo wax walba caqabada siyaasadda oo degta ayay waxa imaan doontaa ciidan degan oo markaas la midayn karo laakiin inta siyaasadda lagu kala duwan yahay ciidan walba meesha uu joogo deegaankiisa ayuu ka dagaalamayaa oo beeshiisa ku difaacanaya ciidan qaran ma jiro difaacay dawladda hadda joogta waxa ay sheegtay in ay ciidamada diiwaan gelisay qalabaysay ciidan ay diyaarisay mushaarkoodana ay u dhameystirtay maantana waxaan aragnay qaar kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 27 oo banaanbaxaya oo sheegaya in muddo sanad iyo 9 bil aan mushaar la siin ma la dhihi karaa dawladdu waa ay siyaasadeynaysaa ciidanka qaranka iyo waxa jira xadiis ayaa jira dhahayo maaragtay calaamadaha lagu garto qofka munaafiqa ah wuxuu sheegaa been labo wixii lagu aaminay ayuu qayaanaa saddex maxaan ku iraahdaa runna ma sheego oo mar walba waxa ka horeysa beenta ka horeysa marka dawladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee nabadii nolol waa dawlad saddexdaas ay u dhan yihiin marka munaafiqiin ayay dalka ku wadaan maahe aniga kulay ma arko ciidan gabi ahaantiis la siiyey mushaar la wada siiyey oo la dhihi kara maanta waa ciidan habeys ama ciidan qaran waxaan maaragtay ha laga sheego iyo wax la rabo doorasho in lagu galo
ayay ila egtahay ciidanka maanta aan waa arkayay kulay maanta bilow bay ahayd intaas in ka darna ka filan bal cabsida ugu weyn aan qabo waxay tahay in ciidamadaas gadoodsan oo maanta loo bilaabay inay guud ahaan xamar soo wada galaan oo arinta ay noqoto gacan ka hadal taas waa cabsida ugu weyn aan qabo waa tahay ugu dambeyntii xalku maxaa uu ku jira sideese lagu heli karaa ciidan Soomaaliyeed oo midaysan oo boodarka qaranka koontaroora laawacade ilaa deegaanada kale ee Soomaalida waxa lagu heli karaa in la helo dawlad Soomaaliyeed oo midaysan oo aan ku dhisnayn kuna iman nidaamka 4.5ka qof walba oo mas'uul ah loo fiiriyo waxa uu yaqaano balse aan loo fiirin cid uu yaqaano ama cid uu yahay waa tahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaa barnaamijkeena kulanka Kalsan oo aan kaga hadlaynay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed barnaamijka waxa marti igu ahaa agaasimo ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Ismaaciil Cusmaan sidoo kale Ismaaciil waxa uu hore u soo ahaa la taliyihii amniga qaranka madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud tan intaan barnaamijkan mid lamid ah dib ugu kulmi doono waa aniga iyo bahda Kalsan TV oo idin leh sida iyo nabadgelyo